cabdirashiid janan oo cararaya ayaa xuduudka Kenya iyo Soomaaliya ka tallaabay saacadan mar kale ceeb ayaa soo hoyatay waana markii labaad oo Axmed Madoobe ciidankiisu ciidan Soomaaliyeed iyo saraakiishooda ay xuduudka Itoobiya waa xuduudka Kenya iyo Soomaaliya ay ka tallaabsiinayaan kadib markii laga awood roonaaday fadlan muuqaalkan shargare wixii ka dhacay Beled Xaawo ayaan halkan kugu la wadaagi doonaa saakay magaalada Muqdisho waxaa ka duulay laba diyaaradood oo helicopter ahayd kuwaas oo waday cabdirashiid janan iyo saraakiil la socotay xero lagu magacaabay UK oo u dhow Beled Xaawo oo ka tirsan Beled Xaawo ay ku dageen isla markiiba waxaa soo weeraray ciidamada Jubbaland ka socda ciidamadaasi Jubbaland ka socda waxaa jira kuwa kale oo cabdirashiid janan taageersanay oo magaalada Beled Xaawo ku jiray laakiin dhamaantood ma cabdirashiid janankii waa laga saaray magaalada Beled Xaawo waxa ayna haatan dantu baday inay u cararaan dhanka xadka Soomaaliya iyo wadanka Kenya waxa wararku xaqiijinayaan in magaalada Beled Xaawo dhamaantood laga saaray oo xadka Kenya ay ka tallaabeen dantuna taasi ku baday janan waxa loo magacaabay ninka ugu sareeya hay'adda NISA iyo Soomaaliya gobolka Gado laakiin Beled Xaawo ayuu ka lug bilaabatay maanta ku dhacdana waxa la sheegay in ilaa iyo muddo hal saac uu cararayay ilaa ay xadka uu gaaray oo ciidamada Jubbaland halkaas ay uga soo hareen arintani waxay fadeexad ku tahay Soomaaliya waa markii labaad oo ciidamo Soomaaliya xadka Itoobiya xadka Kenya ay orod ku galayaan wararkuna waxa ay cadeynayaan in Jubbaland gabi ahaanteed Beled Xaawo ay gacanta ku hayaan ayagoo ay ka talinayaan cid kale oo halkaas ka hadli kartana aysan jirin cabdirashiid janan haddii uu tago Kenya waxaa la rajeynayaa inuu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho lama oga in xaaladda gobolka Gado iyo dagaalka looga soo horjeedo Axmed Madoobe mar kale uu doonayo in halkeeda uu ka sii wado waxa kale wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada Jubbaland ay qabteen qaar ka mid ah maxaabiis nool oo reer Jubbaland ayaguba ah oo la taabacsanay cabdirashiid janan laakiin dadka deegaanka wayna isaqaanaan dadka halkaas ku dagaalamaya oo waa hal beel dhamaantood haddaba daawade adiga arintan maxay kula muuqataa